Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waa Cumar. Waxaan ku noolahay magaalada hoose ee Lewiston, Maine. Waxaan volunteer ka ahay Healthy Neighborhoods. Waxaan ognahay in qaar ka mid ah deriska ay ka baqayaan in banaanka ay baxaan sababtoo ah sharciga hadda la soo dejiyay guriga joog. Marka waxaan rabnay inaan hubino in ay dadka fahmeen. Weli banaanka waa u bixi kartaa sababo badan. Sababahaas oo ka mid ah haddii aad familkaada aad u baxayso oo wax u soo sameynayso raashin u soo geyso oo kala misla haddii oo hawo ama neecaw aad soo qaadanaysa waqtigan oo kala hadda xaaladda hawada ay fiican tahay. Waxaa muhiim ah inaad ogaatid haddii banaanka aad u baxaysid waxaa loo baahan yahay inaad 6 lugood ka dheeraatid qof walba haddii oo familkaada ay ahayn. Waxaa loogu tiragalay intii tabartaada inaad iska yareysho tataabashada badan. Isku day inaad gloves xiratid. Waxaa laga rabaa inaad gacmaha si fiican iskaga dhaqdid ilaa 20 ilbiriqsi markasta oo gurigaada ku soo noqoto. Liistiyaal badan ayaa la soo qoray oo wixii adiga sameyn karta iyo wixii aan sameyn karin oo ku kala sheegay xagga coronavirus-ka. Mar walba waxaan isku dayaynaa inaan idin la soo socodsiino warbixin walba oo soo bax. Warbixintaas oo ka mid ah wixii la sameynayo iyo wixii la sameyn karin. Marka waxaan rabnaa inaad aadid cinwaankaas si aad ku aragtid wixii adiga aad u baahan tahay haddii aad banaanka u bixi karto iyo marar badan ama waxyaabo badan oo ka fahmaysid haddii oo banaanka aad u baxdid macnaha si oo ammaankaaga uu ku sugnaado. Waan ognahay waqtigii oo cabsi badan waaye. Waxaan rabnaa inaan idin sheegno qaabkii oo looga macnaha hortagi lahay. Mar walba waa idin garab taagannahay. Mar walba waa idin caawinaynaa. Wax kastoo dhacayna waa idin fahansiinaynaa. Gurigiinana waxaa isku dayaysiin caafimaad iyo nabadgelyo ku jooga.